السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee nagu xiran waxaan rajeynaa dhamaantiin inaad nabad iyo caafimaad qabtaan alxamdulillaah anagana sidoo kale inta hore noogu xirneed aad u mahadsan yihiin inta hadda nagu cusub waxaa leenahay gacmo furan ku soo dhawaada channelka subscribe noo saara kambareelka furta muuqaalka like share noo dhaha dhanka page-ka duunika soo gaarana sidoo kale na soo follow gareeya waxaa taaganahay dhul dalcad ah dhulkan waa dalcad wuuna siman yahay inuu dalcad yahayna waxaa cadeyn kuugu ah sida magaalada aad u arki kartid anagoo hadda taagan dhulka naga xageeya hadeer oo dhankan deegaanka naga xigo ayaro hooseeyo dhulkooda ah dhulka hadda aad taaganahana waa dalcad waa dhul siman oo dalcada oo aad u qurux badan dhulkan magaaladii sidaas uu daris u leeyahay ma foga waxaana arkaysaan waa Daar es Salaam dabaqaas aad u jeedaan waa dabaqyada laga dhisay Bruj saan marka u soo socona xaafadahan waa xaafadii qaaliga ahaa Banana Estate iyo Orange Estate iyo meesha ay ku yaalaan weeyaan sidaan dhanka kale hadda ugu socotid waa uu magaaladii aan ugu hareereysan saa aragtaan magaaladii aan ugu hareereysan waana dalcad waana dhul qurux badan dhulkan haddadan deegaan ma aha oo boosaska ku dhigdhigan dhul la degan yahay ma aha dhulkan banaan waaye boosaska ama booska idin sheegayaan halkaan hadda kaamirada qabanayso ku yaala hal boos ha ku haynaa oo qiimahan hadda anaga aan sheegi rabno aan ku haynaa wixii kale to dhul oo meesha ku yaalo way ka qaalisan yihiin halkaan boos qof lacag u baahan iska xaraashayo anagana inta badan dhulka qofka baahan uu iska xaraashaya ka iibinaa dhulkan xilligii dhaqdhaqaaqa uu dhulka lahaa lacagtiisu qaali bay ahayd lama haweysan jirin laakiin maanta lacag 10,000 ka yar aa lagu heli karaa dhulka deegaanka sidaan u fiirinay dhulka deegaanka saan kuugu muuqdo 10,000 ka yar aa ku heli kartaa booskan cabirka uu ku fadhiyo waa 20 lagu dhufto 15 muuqaalkan ma kala jarjari doono sidaan magaaladu daris noola tahay oo xitaa qofkii rabo inta korontada soo xariirsado buu degi karaa meesha biyo way leedahay korontada ka yara durugsan oo guryaha sidii muuqda koronto leh qofka ku dhiiradana wuu degi karaa Daar es Salaam meeshan meel ka fog la degan yahay oo qof walba meesha rabo guri ka dhistaa meesha uu dhulku leeyahay buu guri ka dhistaa looma fiiriyo waa cidlo iyo waa duur maadaama meel iska amaana oo jawigeedu uu degan yahay ay tahay booskan qof walba oo dhul deegaan u dhow rabay uu ka faa'iideysan karaa dadku isku mid maaha dadna magaalada dhexdeeda rabaan oo jeebkooda macnaha u gooyo dadna waxay rabaan dhul bararisa oo fog oo mustaqbal dambe loo gadanaya dadna waxay rabaan dhul deegaanka u dhow oo mustaqbalkiisu u dhow yahay dhulkan marka waa dhulka deegaanka u dhow oo mustaqbal ahaan mustaqbalkiisu u dhow yahay waxaan sameynaynaa hadda kiiloomitir saaraynaa kiiloomitirka eber ka dhigay waana dhaqaaqaynaa muuqaalkan ma kala jarayo ilaa laamiga cala dul baan u wadayaa biidnillaah waa aragtaan magaalada oo dhan saasayna ugu hareereysan tahay wadadaana wada toos oo laamiga ku dhacda waa jid wadadan uu dhow yahay booska cabirku ku fadhiyo waa 20 lagu dhufto 15 wuxuu ku yaalaa Daar es Salaam inuu dhulkani dalcad yahay waxa ay ku muuqdo dhulkan yar oo hadda aan gaari rabno uu yar dhul hooseeyo yahay muuqaalka xitaa ka fahmi kartaa adigoon imaanin dhul dalcada qurux badan magaaladii u dhow deegaankiisu ama mustaqbalkiisu uu aad u dhow yahay weeyaan wadada tooska ah oo laamiga hadda anaga nagu beegan meelo dhaxageeda ka baxbayaan oo aan geedihii laga jarinin waan yara leexleexanaynaa almuhim waa inaan laamiga tagno idin tusinana hadda markii deegaanka la fiiriyo dhulku wuxuu u jiraa waxaan 300 mitir dhamayn guryahan caadiga ah 300 mitir 400 mitir camal u jiraa isteediyadan Orange Estate oo kaleeto inta u jirana waa idin tusinaa 1 kiiloomitir camal u jiraa laamigana wuxuu u jiraa 1 kiiloomitir iyo 400 Orange Estate block afraad ay ku egtay hadalkeygina fahmi kartaan rajeynaa dhaqso waxaan ku soo galnay xaafadii Camirnaa dhulalka hadda meeshan ku yaalo 30,000 xitaa dhul inaad uga helin u badan tahay waa qaali dhulkan oo dhulka aad ka qaaliga u noqday asagoo block shanaad ama block lixaad ama block shanaad ah buu qaali yahay oo dhulalka kale la mid ahayn waxa laga yaabaa dhul asaga laamiga uga dhow inaad ku heshid lacagta meeshan la gada lacag ka yar xaafadan waa Orange Estate Banana Estate daris la ah
waa dhulka meeluhu ugu qaalisan yahay Daar es Salaam haddii la yiraahdo oo laamiga laga durko meeluhu ugu qaalisan yahay weeyaan kiiloomitir ahaan wuxuu u jiraa 1000 tilaabo 1000 tilaabo macnaheedu waxa waaye qof walbo wuu fahmi karaa waa 1000 tilaabo caadiya hal kiiloomitir iyo 1000 tilaabo waa isku mid intaas uu jira state-kan anagoo waliba wareeg yar soo galnay laamigana hal kiiloomitir iyo wuxuu u jiraa 400 tilaabo booskaas lacagta lagu rabo waa $9,500 waa lacag 10,000 ka yar dhul lacagtiisu ay 20,000 ka badan gaartay ina hadda ku hayso 9,500 waxay ku tusinaysaa baahida loo qabo ma ahan cudurdaarka dadku hadda ay sameeyaan kaliya dhulka dhacsan dhulka asagoo dhacsan hadana meesha dhulku ku yaalo dhan qiimahaas kuma wada helaysid qiimaha hadda booskaas la gadayo dhulka oo dhan laguma wada heli karo dhulku asagoo densan maxaa sababaya mar walba baahida ku xiranta qofkan haduu lacag aad ugu baahan yahay dhulka qiimo ahaan qiimaha uu jooga qiimo ka hooseeya looga qaadi karaa anaga shaqadeena iyo qaabka wax u raadinana waxa weeyaan qofku uga baahi badan yahay lacag inaan dhulkiisa soo beecino anagoo hayno laga yaabo muuqaalo badan ama dhulal badan oo iib ah haddana waxaan kan u soo hormarinaynaa in uu ka jaanis badan yahay boosku ka jaanis ka badan yahay ina idin la wadaagno adinkana ay ka faa'iideysataan booskaas qof walba deegaan dhow rabay dhul mustaqbalkiisu uu dhow yahay waa dhul hore uga faa'iideysan karo Daar es Salaam marka la fiiriyo qaabka ay u kobcayso degmo cusub waaye ilaa xadna way kobcaysaa taas ha ka cabsanin ha isdhihin meeshaan magaaladu way ka yara durugsantahay koormeel degi doona ayada dhan Daar es Salaam ayadoo la dhahay meeshaan duurka koormeel degahay magaalo noqotay si marka fursaddan maanta ay ku hortaagan aysan ku dhaafinin haddii lacagtaadu aysan dhul qaali oo ku goynin jeebkaaga meeshuu ku gooyo wax ka iibso anagana waxaan ugu ogtiin insha Allah inaan idin la shaqeeyno laamigu waa imaanay 1 kiiloomitir iyo 400 u jira dhulka laamiga 1 kiiloomitir iyo 400 dhul u jira oo Daar es Salaam ku yaala lacagtiisuna 10,000 ay ka yar tahay waxaan maleynayaa waayahan miinan arkin ayaantan miinan arkinin laakiin jaaniskan uu idin furan yahay dadka wakiilada soo dirsada qofku inuu qof wakiil soo dirsado wax sax ah waa maadaama uusan joogin laakiin taa wakiil soo dirsata xitaa naga warhaayo nala soco oo waxa qofka wakiilka ku sheegay iyo waxa anaga ku sheegayno inaan nala wada socoto oo aad xogti og tahay weeyaan waxa dhacdo dhulal badan oo dad wakiila qofku inta soo dirsado qofkii anaga dhulka markaan soo tusinay kadib suuq inta yimaado inuu dhul kale ka raadiyo dhulka xageeyo ama goofo nooc min cilada leh inuu qofku u iibiyo qofkaana ma oga oo wuxuu u maleeyaa inuu dhulka anaga naga iibiyay meel dhuxul ku dhumaya marka la socodana la soo xiriiro ma santiin mar walba aan isla socono ama adinka wixii toos u iibsada ama wakiil soo dirsada laakiin WhatsApp-ka cod noogu soo reeb ifan taleefanka hadii laga qabo waayo WhatsApp-ka cod noogu soo reeb anaga mar walba hadaa wakiil soo dirsatay hadaa adiga imaadaba si waxaan idinku shaqeynaynaa hagar la'aan ah insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaah